waxaa magaalada Laascaanood laga dareemayaa horumar dhinac kasta taasoo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dhawaan la bilaabay 6 kiiloomitir oo wado laami ah taasoo dhex mari doonta xaafadaha koonfureed ee magaalada Laascaanood maayirka degmada Laascaanood ayaa saaka hornimadii kormeer ku sameeyay wadadaasi oo dhismuhu ka socdo isagoo baaq u diray bulshooyinka ku dhaqan magaalada Laascaanood inay baneeyaan wadooyinka maanta waxaan taaganahay wadada laamiga ee 3 kiiloomitir oo ka soo laabanaysa aaga Farxaskulle tan waa dhabadii Royal waxaan saarnaa laamiga hadii la ka dhigo waa la diyaariyay ciid baa laga gurayaa dadweynuhu aad iyo aad u mahadsan yahay sida uu nolol shaqeeyay ee dhabooyinka u furay waxaan leeyahay sida dhabada Royal dadku ha ku daydeen inay sii furtaan dhulkooda wadooyin badan oo kala la sameyn doona 3 kiiloomitir oo 6 baan qaban doona hadii la ka dhinta bishara 3 kiiloomitir sida loo baneeyay ee dadku u diyaar garoobay kuwa kale ku daydeen waxaan uga digayaa dadka wadooyinka ku habsanaya ee wadooyinka dhisanaya maray noqoto waa la soo gaaraya waa la ka dumi doonaa haddii wadooyinka dhisataan ama barkad ka dhisa ama suuq ka dhisa ama guri ka dhisa waxaad ogtihiin Laascaanood wadooyinkoodu way xidhnaayeen boqolkiiba 99 hadeerna boqolkiiba 90 way furan yihiin dadweynuhu intooda badan waa dad dhabooyinka jecel waa dad horumarka jecel laakiin dad baa caadaystay in dhabooyinka ay goostaan waan uga digaynaa dadkana waxaan leeyahay ka digtoonaada dhabooyinka qofkii la calaamadiyo ha furto meel aan la gaarin hadii la ka dhigo ma jirto waxaan ka shaqeynaa magaalada toonkeeda iyo dhulka ganacsiga horumarka in wadooyin loo sameeyo leed lagu xiro ay magaalo qurux badan noqoto cilifyadana waan gaari doonaa insha Allah hadda jeedina dadka qurbo joogga ama iyo waxaan leeyahay qurbo joogta iyo ganacsatada reer Laascaanood way ka maqayeen doorkoodii qurbo joogta ma hayno wax dhaqaalaha kama hayno Laascaanood in iyagu leeyihiin oo ay suuqayso ma ogaan malinaya ganacsataduna in lacag ka urursamayaan ganacsato wali wax ka qabatay ama jid furtay ama cusbitaal samaysay ma hayno anagu waxaan leenahay magaaladiina wax ku darsaday bilicdeeda horumarkeeda caafimaadkeeda dhinaca kale qaar kamid ah ganacsatada suuqa ayaa ka mahad celisay horumarka ka socda magaalada Laascaanood taasoo dawladda hoose ku amaantay laakiin waxa walaalahay in qudradana suuq loo sameeyo annaga burbur weyna soo gaaray qudradiina aan loo sameyn suuq laakiin laamigi waa wanaagsan yahay dalka si wacan ma wax loogu qabto Mawlid Ali Star TV Laascaanood.